bal nabigu bini aadamku ku dadaalay quwadiisa iyo fikirkiisina wuxuu ku bixiyay sidee bashariyadu u islaaxdaa sidee bashariyadu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhawaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqo ula yeeshaan taasuu nabigeenu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam ummadii hore baa la yidhi mar alle markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arladow nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiista waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nin yeelaya aniguna barya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keeno maaragtaanay falastiin nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab asif binu barkhaabay mufasiriintu dhigan magaciise wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ilgibidhs ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi ilgibidhs ayaa carshigii bilqiisa min ardi alyaman ilaa iyo falastiin lagu keenay ilgibidhs walaakiin asxaabtii nebiga radia allaahu canhum imisa khawaariqu alcaadaat imisaa ka soo daahirtay noloshooda sayidina cumar radia allaahu canhu camar binu caas markuu masar tegey dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadh dhikira oo shaabadoo qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalli geliyaane lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu ziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay maaragtaane waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquul ah soo maha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiira almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qablika falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysay kuwa baanin ha socon hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkii qahaarkaa waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay buu ku socdaa reer misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas
fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja. qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radia allahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wa yaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi waad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo khaniima in la soo laameen iyo khalaba iyo haziima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaar garownay oo macrakadii dagaalkii uu noo bilaabmay ayaa gaaladu dhabarjebin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buuro dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baa halkaa ka maqallo bay yidhahdeen hadihi cilaaqa maca allah maraa laysa mara aakhirsa siirada asxaabta maraat badahay dul mareen badaha asxaabta rasuulku mashuu cala albixaar haddii nebi ciise muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culammadu yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi maxamed oo la socon ayaa asxaabta nebiga webiyada dul mariyeen fardahoogii wa haadaa ibraahim aladham doonni buu la socday doontii baa kacday mawj baddii baa aad u kacday dadkii doonta la socday oo dhan ayqanuu bilhalaag halaag bay dareemeen fasaaxuu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen hal mar keliya uu sheekhii u hurday hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadii na tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waaryaada muslimka waxay doonaan ha qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka o dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn cilaaqa maca allah siirada ku laama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan asxaabtu waxba maahayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu alambiyaa bay ka qaateen khaatamu alambiyaa ghaswatu daat ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqta duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kaley raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi ciidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurda keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaaddu waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war kama haya qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina haada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah allah allah
fasaqada sayfu min yadihi qisada meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin laakiin nebigaa uga warramaya muxuu nebigu uga jeedaa qisadaa uga warramaya ya tawakulkuu barayaa tawakul ictimaad cala allah makhluuqoo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ila biiraadatihi walaa yaskun ila biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact walaa raada lima qadayt walaa yanfacu da ljadi minka aljad ducaa bacda kuli salaa buu nebigu ducadaa akhrin jiray ummaddana nebigu ducadaa u baray ducadiisu waa iimaan waa nafyiya isbaat qur-aanku waa iimaaniyaad qisasu الصaxaaba iyo siiradii nebi maxamed o dhan iimaankay ku baraysaa uxud غaswatu uxud iyo غaswatu beder غaswatu xunayn imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban hadday ummadda fahmaysa diin kam duruus fi hada alghazawaat beder 70 gaalay laayeen 70 gaalana way xidheen uxud 70 asxaabtii nebigaa la laayey intaasoo ragna waa laga dhaawacay labadaa ghaswo culammadu waxay yidhahdeen midkee manfaco badan ibn qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghaswatu uxud ayaa ka manfaco badan buu yidhi ka faa'iido badan ka cibro badan ka duruus badan ka fatuuxaad badan buu yidhi kow ta labaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado 300 oo munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday beder lama garan munaafiqiinta laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaat halkaa haddaan ka dhaqa haddaan adkaaniyo haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi dagaalkii baa bilaamay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey khaniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta duldhigay ayaa iskhilaaftay qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee khaniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya qola waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu joogay xaggay u dhaadhacaysaa khilaaf maxaa dhacay khilaaf ijtihaadi weeyaan waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjebinta ka ilaalinayey oo kala jabay isla markiiba dhabarjebin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo khaniimadii oo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen 70 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 71 bay laayeen nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aaway nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta abubakar uu dhex socdaa cumar uu dhex socdaa abubakar uu ku jiraa cusmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlulbeder oo dhan baa joogta ducadood waa mustajaaba cid ilaahay uga dhowiye kama jirto maxaa looga adkaaday nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasrigii waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirta ee diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay aayaddii maxay ahayd maclim minkum man yuriidu awalkeygii id tusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu
إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. أفر تاسا كل دعي فشل تنازع حب الدنيا معصينا ويكون دعين أمرك النبي قد يلا جبيه معصية دعدي هدي أصحابتي نبي محمد عيد إلهي يقدوا عالم كاي سنجرين أمر نبي محمد كسوفوا لي قاركود هدي اجتهادوا جبيين نبي قول لجوغا نسرق اللي قرر فعوته ضواتا إن كود انتين والنبي محمد نلقوا دعواعي ومدى ما أنت تارك الصلاة عيدة كبطي نسر إلهي سيكون فلان يسعى الله هنا فامسي فولا ليال ما هو الحل؟ حلوة معي إقامة الأمة على الدين حل كلمة جري وإن أمد مر لبعض لقود دالا ولقود استاجيا ما كان عليه النبي والصحابة أصحاب النبي محمد هي الزمن كي النبي أمد وحي قبت إيماني الدين هذا مر لبعض أمد أصلا نغطه قرقارك إلهي الكيسي بوتاقيا قرقارك إلهي وهالكيسي ديار بو إلهي ليها قرقاركيسي لكن عيدي لو قرقار يا عالم في جرمانتا قرقارك وحال الشاقي إن مؤمنين لو قرقار أيو إن الله مع الذين اتقوا معية إلهي متقين بالله الشاقين هليان أوي متقينتي أوي مؤمنينتي والله يحب المحسنين بالله إليه أوي محسنينتي والله يحب الصابرين بالله إليه أوي صابرينتي إن الله مع الصابرين بالله إليه أوي صابرينتي ما أنت صفات في القرآن كوي كتو الله لكن تدك الصفات كاقبي ما أنت عالم كنتي جوغان فجودك دعوة ولا الوين فهمتان ولا ليال واحد دعوة اللي قد لي وحويان ورمر لبعضها صونو لينو صفات الإيمانيات صفات كي اللي قموا تيسري قرقارك إلهي هي معية إلهي هي مارك ترى النصرة غيبك أي اللي قد لي دعوة اللي صونو لي مر لبعض تاسع دعوة اللي قد لي خروجك أفرت البلاد يا فرتنك ووسائل ويام والوسائل لها حكم المقاصد ولكن الهدف ومعي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النولة يا الله قلت فلق لي ويحليه حين نبي محمد ولي يمدي محول لي يمدي نبي محمد دين ما يسترن إيمان كاملة دين ما يسترن دين ما يسترن دين الزمن كينا كتبت يكون ما يسترن تهي نلش بشر يده وكما قنت هل كان نبي محمد دين وكل ما يسترينا ما هين كتب والله وعو كل ما يستري حياة الصحابة رضي الله عنهم نلش أصحاب دين تكون ما يسترن حياة الصحابة وحياة دي إلهي ورالك كان نقضي ويان إلي رضي الله عنهم فلذلك ولا ما تفردي نوم جو فردي نوم جو والله من نفت هذا كود دال عالم كنا وكسوقيا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول والله هيد بشر كادوية كنا ولا هذا إلهي حقه وقوير إلهي ودوا إلهي تاسا إلهي إنك نو دورتي هذا الشغل أو كعنو إلهي الدعاء إنه أقبليا إلهي بينو قرقارايا حبيب النجار تضبات السنة أيو سنة بعابد أيي صدح نبا صومرتو الرسول وحيري أنو سنة بكاسان عابدا برس يحنون كان وان قبا الدين اللي مدقنو ميبا كدقنا هاي هذا دي دعاء عيسان وان إسلامي هذا دي دعاء عيسان وحنون كان إلهي قد القاضو أنا وان راعي وان الإسلامي ودعيين حنوكي با إلهي كدو القاضي هروك إسلامي ويسو دافين مقالة با إيمادين دادكي با دينتي إيمانك وقويرين مرقاسا الله تشهدو الليلي صدح ذنن وح عصوب با إيمادين حل الله يو حبيب النجار با مغلي قوم قيسي إني تشهدين صدح رسول وكسعوا تمارك تاني من عند الله بمفسرين تودادين قارنوا عير هذا النبي عيسى صدري هلو ما جرس كودا جي والدعاء ويا ساعدة قد ساعدة نوعي كسانه الله ينفهم سيو فسوقا بيننا إن شاء الله ويمدي قرآنك هو عجيب ويان وقلبك قرآنك لو شيء قصداس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
qaala yaa qowmi ittabicuu almursaliin isla markiiba uu soo orday oradkiisii baa qur-aanka lagu sheegay raganimo buuxdaa loo markhaati kacay socodkiisii baa qur-aanka lagu sheegay hadalkuu ku hadlayna qur-aanka ilaahay waa ku sheegay muxuu yidhi yaa qowmi tolkayow ittabicuu almursaliin kuwa raaca waad ku daba liibaanaysaane ittabicuu man laa yasalukum ajran weliba nimankan ajar iyo mushqaayad niga dooni maayaan iska raaca waad ku daba hanuunaysaane iyakuna way hanuunsan yihiin muxuu u yidhi baa la yidhi nimankan wax adduunya niga dooni maayaan lacagay niga dooni maayaan muxuu u yidhi markay u duceeyeen ilaahay caafimaadkii uu siiyey ayuu xoolo rabay inuu siiyaa la yidhi markaasi ay ku yidhahdeen annagu waxba ma qaadanno ilaahay dartii baan ummadda wax ugu sheegnaa dadkana xagga ilaahay baan ugu yeedhnaa shaqadana waa shaqo ilaahay noo doortay annaga way hanuunsan yihiin buu yidhi oo nimankan diintu wayba ka muuqataa iyaka taqwadii baa ka muuqata iimaankii baa ka muuqda daacaddii baa ka muuqata cadaaladdii baa ka muuqata ixsaankii baa ka muuqda noloshoodii baa diin ka muuqataa waan arkay aniguya ar iska raacood ku daba liibaanaysaane markaasay saddexdii rasuul waabay iska iloobeenoo isagii bay markaa qabteen baa la yidhi markaa bay ku yidhahdeen adiguna ma raacsan tahay wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaaha ee abuuray ee bilaabay ee xaggiisa loo noqonaayo ee makhluuq oo dhan iska abuuray kaa inaan caabudo xaq bu igu yeeshee cibaadadiisuna waa igu waajibe maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaahaas kaasi xaggiisa igu yeedheen markaasay ku yidhahdeen diinta ka noqo kama noqonaya buu yidhi dhulkay ku aaseen baa la yidhi markaasay minshaar duldhigeen ka noqo diintaada culimmada qaar waxay yidhahdaan maye meel dhagaxle intay dhex seexiyeen ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo sidaa ku dhintee xabiibu najaar cajiib innii idan la fii dalaalin mubiin haddaan diinta anuu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay buu yidhi khasaaro cad innii aamantu birabbikum faasmacuun halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinayaa u fiirso innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiinna ayaa rumeeye fasmacuunii imaqla buu yidhi waa markii u dambaysay naftu ay ka sii baxayso ee midida loola dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa waxaa la yidhi way dileen ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhuli iljanna adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmi yaclamuun ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninka qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi cajiib way dileen markay dileen iyakii may raaxaysan kamay dambayn ninka ay dileen waa nin daaciya waa nin dareen ummadeed leh waa nin ummadda u samafalayey waa nin ummadda u nasteexaynayey saddex rusulu u kaalmaynayey xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayey ninkay dileen nin ciyaara ma aha waa nin ilahay agtiisa qiimo kula weeyaan waxaa la yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min aلsamaa wamaa kunna munziliin in kaanat ilaa sayxa jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu baryey wada kacaan hal mar keliya ku qayli baa la yidhi hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi kam muslima maanta caalamka ku dhimanaysa oo lagu laynayaa ilaaha noo gargaar muslimiinta duca kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa mee habaarkii maanta hal nin bay dileen qoomkaasi halkii nin baa ilaahay raaciyey qoomkii oo dhan hal malaayiin muslimiina maanta la laynaya caalamka aaway ducadeennu halkay tegaysaa waa duco shuruuddii baan loo buuxin shuruuddu waa maxay dacwadda horta ka horraysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay qoomkiisuu diintii iimaanka ugu yeedhay markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir ilaahow layga qaalib noqoy haddee toole ilaahow ii gargaar buu yidhi 950 sano dacwad hal habeenna maaragtaane duco fafataxnaa abwaaba aلsamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir baa ilaahay yidhi mudamiraat alilaahiya samadiiyo dhulka biyo laga furay hal qofoo gaala adduunyada kuma hadhin maalinkaas fa walaalayaa shuruudda han buuxinno dacwadda han u kacno xaqa dacwadda markaan fulinno ducadeennaa mustajaabo noqon waxaan doonnaa ilaahay markayna siinayaa